malaayiinta Soomaalida ayaa mar kale lagu matali doonaa funaanada xulka qaranka Soomaaliya. Cawaale oo ay ciiltirayaal gardaadinayaan ayaa caawa ka babanaya Dooxa. Xidigaha Ocean Stars ayaa fooda dari doona dhigooda Cumaan. Si aad wax badan uga ogaato xaqiiqooyinka kulankan, like saar bogga Maxamed Muuse Tarsan, siina faafi muuqaalkan. Mahadsanid. Soomaaliya soo kabasho ayay sameynaysay saddexdii kulan ee ugu dambeeyay, gaar ahaan ciyaarihii bariga iyo bartamaha Afrika oo 4 dhibcood ay urursatay. Soomaaliya ayaa sanadkan qayb ka ah wadamada ka qaybgalaya FIFA Arab Cup oo lagu qabanayo dalka Qatar. Soomaaliya ayaa ciyaari doonta kulan isreebreeb ah oo ay la dheelayso dhigeeda Cumaan. Haddii ay ka soo adkaatana si toos ah ayay uga qaybgali doontaa tartanka Carabta. Xidigaha Ocean Stars oo guul ka soo gaara dhigooda Cumaan waxay ka dhigan tahay inay la group noqonayaan wadamada kale ah martigeliyaasha koobkan ee Qatar, Ciraaq iyo wadamada Bahrain iyo Kuwait midkii soo adkaada. Soomaaliya waxay ka mid noqotay dhowr dal oo ku yaal qaaradda Afrika haddana ka qaybgalaya tartanka Carabta, kuwaas oo kale ah Djibouti, Suudaan, Soomaaliya, South Sudan, Algeria, Tunis, Morocco iyo Masar. Soomaaliya ayaa tartankan ku wajihi karta haddii ay caawa guul gaarto wadamada sida aadka looga xushmeeyo qaaradda Afrika, kuwaasi oo la heer ah wadamada kale ee caalamka. Ciyaaryahanada ku metelaya xulkeena FIFA Arab Cup ayaa isugu jira laacibiin ka ciyaara horyaalada kala duwan ee caalamka iyo horyaalka maxalliga ah ee Somali Premier League. Tobaneeyo xidigo xul ah oo laga kala keenay daafaha caalamka ayaa kor u qaadaya rajada laga filan karo xulka qaranka Soomaaliya. Saciid Xaaji oo laga keenay dalka Mareykanka waa mid ka mid ah xidigaha sida weyn loo hadal hayo. Kubad qaabeeyahan ayaa ku wanaagsan toogashada kubadaha dhaadheer, waana jakatoor macallin ku ah isku xirka qadka dhexe iyo weerarka. Sayid Muuse Axmed waa daafac heer caalami oo ka ciyaara kooxda heerka koobaad ee Bath ee dalka Australia, waana daafac xadiid ah oo weerartami kara, waxa uuna ka ciyaaraa garabka midig. Ciyaartan ayaa soo gali doonta xilliga bariga Afrika 8 oo gow ah, waxayna ku ciyaari doonaan garoonka kooxda Al Sadd ee dalka Qatar. Maxaad u rajaynaysaa xulkeena?